xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay wehelinayaan madaxda Hirshabelle ayaa waxay ka qayb galeen dhagax dhigga dhismaha xarunta degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Warkaasna waxay noo soo diray Ibrahim Cali Nuur. ayaa ahayd mid lagu dhex dhigay xarunta degmada Raagaceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxaana ka soo qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya, qaar ka mid ah labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabelle, maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe, gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Raagaceelle. Waxa goran goobta ka hadlay gudoomiyaha maamulka degmada Raagaceelle Cumar Cali Nuur, gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makraan iyo gudoomiyihii hore ee maamulka gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale. waxaan rabnaa waxa noogu daran inaan helno ceel riig ah oo dhererkiisu u dhaxeeyo 250 ilaa 300 mitir. haddaad tihiin heer federaal iyo heer stateba codsigaasu waa idin ag yaallaa. waxaa xiga ma laha Raagaceelle isbitaal ma laha, MCH ma laha. hooyada meeshan ku foolata xamaraa loo qaadaa, gobolkii waa kala xirannahay, biyo ayaa ka sokeeyo oo lama mari karo. dhinaca biyo la'aanta inaad maartay hay'adaha iyo in allaale intii adigu aad maartay hawshaas adigu xil saarantay inaad maartay waxaan rajaynaynaa inaad wax ka qaban doontid. maantana aad maartay aragtido indhaha adigu inaad timid ay nasiib ay tahay, ogaatidna waxa ka jiro aad iyo aad ayaana maartay kaga mahad celinayna dhammaan inta ka soo qayb gashay dhagax dhigga maanta degmada Raagaceelle. waxaa la iska rabaa marka adeero markaad wajigaaga quruxsataad waji kale ka hadli kartaa. koo waxaa la rabaa Raagaceelle dadka joogo hadday maamul yihiin iyo hadday dadweyne yihiin inay ayaga dib isugu laabtaan. dhinaca kale xildhibaan Sakariya Muumin Hilowle oo ah xildhibaanka degmada Raagaceelle ku matala baarlamaanka Hirshabelle isla markaana dhagax dhigay xarunta, iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxay sheegeen inay muhiim tahay in dadka reer Raagaceelle waxyaabaha ay u baahan yihiin in laga saacido. dad wanaagsan waa dadka degan meeshaan, waxay u baahan yihiin in laga saacido baahiyo badan oo dhanka arrimaha bulshada ah, sida xaaladda caafimaad, xaaladda biyo la'aaneed. meesha biyo way leedahay laakiin biyaha ma lahan heerkii la rabay testiga oo macaan ma ahan, oo ma laga daba tigi karo macaankii, mana awoodaan dadka. waa in laga saacideeyaa hay'adaha caalamka ee ku shuqul galay arrimahaasi. sidoo kale waxaan doonaynaa inaan maaragtay mar walba aan ka hadalno baahiyaha gaarka ah dowlad goboleedka Hirshabelle, gaar ahaan gudoomiyaha gobolka iyo wasiirka arrimaha gudaha ayay fariinteeda qusaysaa. waxaan leeyahay inta ku dadaashay iyo inta shaqadaas qabatayba waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahad celiyo gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Madaale, oo xaqiiqatan ay muuqanayso in uu lahaa dadaalkii ugu horreeyey oo kan maanta aan dhagax dhigayna barihiisa ah iyo midka maanta uu muujinayaba. waxaan leeyahay Sheekh Yuusuf ajir Allah kaa sii aad u mahadsantahay. ugu dambeyn xildhibaan Cabdulqaadir Carawi Ibrahim oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku baaqay in loo wada istaago wax ka qabashada baahiyaha ka jira degmada Raagaceelle. waxaan maanta jidka dheer u soo marnay oo rafaadka ah oo burbursan oo bacaadka ah oo tababar baabuurka bacaad naga galay inaan idinkeeda aragno baahiyihiina gaarka ah qabtaanne aan u gudbino meelaha aan matalno oo meelaha ay ku matalna goobaha ay ku matalna baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan idin ka rabnaa inaan gacmaha isqabsano kana shaqeyno sidaan ceelkaas biyaha u heliyeen. runtii aad ii xanuujisay, waana kula noqon doonaa wasaaradda ay qusayso. waxaan rajeynayaa in si degdeg ah wax looga qabto. Ibrahim Cali Nuur, TV Universal, degmada Raagaceelle, gobolka Shabeellaha Dhexe.